cabdirasaaq axmed maxamed oo jindi loo yaqaano xubin ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose isaga iyo dhowr kale oo xubnood oo baarlamaanka Soomaaliyeed oo labada golaha ka kooban waxa ay dhaliileen xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre iyo beesha caalamku ay ku eedeeyeen in faragelin ku hayaan doorashada Jubbaland waxaan weydiiyay waxa ay iyagu arkaan ee wanaaga ah oo aysan arkin dawladda federaalka beesha caalamka iyo sidoo kale siyaasiyiin badan oo odayaal dhaqan ay ku jiraan oo Jubbaland ka soo jeeda waxa way meeshan procedure baa ka soo socday muddo dheer guddi baa hore u dhisnaa oo doorashooyin madax bannaan oo dastuuri oo ay samaysteen Puntland sida reer Jubbaland soo sharci u ogol yahay marka hawshaas socoto annaga hawshaas baan adkeynaynay waxaan indheynaysaa hore ku sheegnay sida ay wax u socdaan procedure-ka khaldan yahay inuu saxan yahay waxaan ay naftirkeena aan ku baraarugsanaano ma taqaanay aan naga hoos bixinay noqdaan ayuu qorsheena marka xalkeena saas oo jawigu waa fiicay hawshu waa wada nimankan ma taqaanay khamiisna inay dhacaysan u malaynayna haddii aan leedno marka wax saxan bi idin soo baxa mise qaladaadka la sheegay dawladda federaalka iyo beesha caalamka ay tilmaamayaan wad aragteen maxkamada waxay tilmaamayaan anaga ma arag waxay tilmaamayaan mesela waxa aragna dawladda go'aan ay dhiibtay leedahay waxa ka soo baxa ma aqoonsan doono haba yada wax dastuur iskabeen wax sharci oo sideen ma jirin marka ma garan karna dawladda beesha caalamka waxay ka hadlaan waa la kulmay kala yiraahdo James Swan iyo nimanka la socda iga diiyo UN-ka iyo waa la kulmay waaga yaani soo madaxdoodii markii meesha yimaadeen madaxweynaha la kulmeen waa la kulmay hadde waxay codsadeen in la kordhiyo muddada lana furo muxuu ahay sharxin si ay soo registrayaan waa la furay waana loo sameeyay ilaa hadda waxay soo registrayaan ma maqal laakiin de shaqaalaha waxay dalbeen waa la sameeyay marka waxaan rabaa musharaxiinta kale ee magaalada Kismaayo ku sugan ma la kulanteen oo sidii wax loo xalin lahaa ma raadiseen anna musharaxiin dhinaca doonaha aad lamaana kulmin ha noqdeen kuwa soo diiwaan galiyay ama ha noqdeen kuwa diiwaan galiyay dooda qabo anna gar ma gali karin maxay dad aanu kala gar qaadno oo hadda labadaba dhinac raali ka ah ma arag procedure soo socdo baan arkayna marka cid aan la kulmay ma jirto laakiin magaalada Kismaayo waxaad u tagtay inaad hubisaan sida ay doorashada u socoto inay sax tahay inay qaldan tahay ayaa u tagteen Soomaa marka cidda aad la kulanteen ee aad wax weydiiseen oo si wax u socdaan processka u kurgasheen waa hal dhinac maxaadna dhinac kale warbixin uga dhageysanin oo aadna ogaanin ayagana waxay ka tabanayaan aan ku saxaadir macna hal dhinac lama kulmin annaga waxaan la kulmay guddigii madaxa bannaan ee doorashooyinka oo dastuuriga ahaa guddigaas waa macruuf sidoo ku yimaado dastuurkana ay wuxuu u ogol yahay inay dawlad goboleedyada soo magacaabaan Puntland u dambeysay hadda soo magacaabatay oo sidaas oo kale madaxweyne Cabdiweli xilliga waxa asaga magacaabay dib la'aan wax dhib aan ma jirin wakadalika nimankan madaxweynaha soo magacaabay waxaan u maleynaa inay meelan ka soo galno aanay jirin labo waxay u yeereen in shaqada ka soo bilaabeenay odayaashii dhaqanka ugaasiyadii oo qaarkood ay dhowr 10 kamid ahaayeen 135 saxiixayaashii ugaasiyadii nabadoonadii ayagina waa la kulmay nacam anaga cid kaleente oo musharax ama siyaasad isku haysto lamaanan kulmin marka odayaal kala jira oo tabasho qaba oo odayaasha dhaqanka Jubbaland ka tirsan oo rada bulshada reedku waxba tabasho qabay maxaadna fursad u siinina wallahi hada maxaan anagu hadde cid marka laga reebo social media problem noocaas markii laga reebo si official cid cabashadaasi qabta hal ugaas baan maqalnay nacam oo kamid ah wasiir rasmi ah oo arrimahan diiday laakiin inta kale inta sida saxda ah waxaan ku qanacnay oo aragnay oo la tusay la kulannay guddi ay sameeyeen ilaa 5 nin odayaashii dhaqanka ugaasiyadii oo qaarkood ay kamid ah ku sheegay dhowr 10 kamid ah saxiixayaashii ma taqaanay waxaan ku qanacno in la noqoto meel kale inta hadda fadhiso oo aan isla yiraahdo ama la kulantaan ma arag cid anayna soo dalbatay oo kale ma arag waxa ii muuqata in waxa aan wala kulannay waxbaan baarnay aad leedihiin oo dhanba inay yihiin wax hal dhinac ka soo jeeda ama isku aragti ah oo meel wax iskula wada magaalada dhinaca kalena waad ogtahay hadaanan xaqiiqada ka hadalno inaanan la kulmin oo aanan fursad siin haday dhaqan noqon lahayd haday siyaasi noqon lahayd iyo hadii bulshada qayb ka mid noqon lahaayeenba waa santahay arrin sax ah weeye laakiin waxa rabaa inaan kugu celiyo adeer markii laga reebo dhaqanka meel kale anaga la kulnay ma jirto hal dhinac lama aanan kulmin waxaan la kulnay guddigan cid kasta u dhaxeeyay
cid u gooni ama jira guriga guddi dastuuri ah buu ahaa xaq baynu lahayn inay waxaan ayaga soo xulaan inay ayaga odaasha u yeeraan inay procedure ka sameeyaan arrin dastuuriga Jubbaland u taalay aheeday annaga dastuurka iyo nidaamka Jubbaland u yaal inaan dhex galno waxba kama bedeli karno dhaqan soo jireena oo siyaasad soo jireena oo dastuuri ahayn aheeday ama dhaqanka hadday jirto dhaqan kaleente oo waasiyo iyo nabadoon oo dadkii asalka ah saxda ahaa laba nin baa ka jirtay ninka midna waa yimiday maanta waad ka baqasheen social media cid kaleento dhinac oo annaga la hadli karna ma jirin xildhibaanadiina oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ee deegaanka tagay haddaanan u tagin inay wax xallisaan oo dhexdhexaadin ah sameeysan oo dhinacyada isu keenin ma loo qaadan karaa in mucaaradnimadiinni iyo kala aragti duwanaashii dawladda aad ku jirteen aad dhinac kale uga faa'iideysanaysaan maadaama baarlamaankii uu xiran yahay magaaladii ay degan tahay in halka u weeciseen lama santaadar waa sax waxaan inaan arrintan ka jawaabo inaan arrin yar sheego annaga golaha muxaafad markaan nahay waxaan u malaynayaa dastuuriyan iyo siyaasiyan iyo caqliga xataa wuxuu uga leeyahay waxa weeye shacabka iyo waxay rabaan hadda reer Kismaayo aad dhex gasho maanta baahidooda waxa weeye sidii wax u socdaan ay ku faraxsan yihiin qabla kulli shayna dadka bani aadamka waxa u muhiimsan inay ka fakaraan ammaankooda ammaanka ay arkeen siniinkii la soo dhaafay darteed oo ay ku faraxsan yihiin sida ay wax u socdaan qodob kale hadda ku laabto adeer annaga uma ximaarin annaga ma yihiin xukuumad ama fulin ma yihiin annaga goobjoogina ka noqon xaaladda jirto ayaan u nimid uma aanan imaanin inaan dad u kala eexano cidis haysato oo hadda annaga wax noo soo bandhigateen saa ku sheegay mana waana kugu celinaya annaga lama kulmin dadka siyaasadda ku jiro hal musharaxo aan la kulanay oo ku registration sameeyay ma jiro Axmed Madow la kulanteen sida sawirro lagu soo bandhigay igu socday Axmed Madow oo talada ka sii degayo ayaa la kulanteen sida muuqaalo magaalada Kismaayo ka yimid ay sheegayeen la kulan official ama marna annaga wax soo socon lama kulmin Axmed Madow haba yaraatay wax gar ah oo ama aan ugu tagno saayeelitaan ayina ama asagoo naga codsadayna ma jirin waxaan la kulannay ninka la yiraahdo James Swan oo amaankiisa dartiisa meel kale aan wada kulmi karin maalinta aan ku kulmay markuu ka degay baan isaga asagana laakiin wax kale soo dhexeeyay xoogan aad Kismaayo geliseen idinkoo tirada la eego laba gole baarlamaanka ka socdo Soomaaliya meel kale oo dhiban oo looga baahan yahay jirto oo aad matashaan maxaadan u gelinin oo aad Kismaayo ugu qulqusheen waa maadsantahay مناسبة هذا مثلا هذا هيرشبه لما دي باقي جلاد maxaan ka doonaa مثلا yiraahdo galmudug ii sheeg aan dhayna galmudug waa soo noqonaya koonfur galbeed maxaa dib u ka jiraa مثلا yiraahdo Puntland adiga hirshabelle laga soo doortay inkastoo baarlamaanka Soomaaliya aad ku jirto dadka Soomaaliyeed matashadan hiiraan way doorashadaadu hiiraan dhibaato uma yeero oo dadkeedu waxay ka barakacayaan lacag la'aan noloshii ku adkaatay deegaanku deganaan kama jirto heshiis kama jiro maxaa weey dhibka hiiraan ka maqan oo aad leedahay nabad heestaan nacam hiiraan adeer wax dhib oo ka jira mala wax la isku haysto la iskaga soo horjeeda mala marka uu dhibka ka dhacayo gudoomiyihii gobolka hiiraan iyo madaxweynihii hirshabelle isku qabsadeenna aniga kalimayna 9 xildhibaan anagu aan 15 days ku soo maqneen 15 cashan ku soo maqneen marka adeer meeshaas meel hadda xildhibaano uga furan ay aadaan ama ay wax ka qabtaan mala waxay u baahan yihiin gurmad kaleento dhaqaale iyo gurmad dawladnimo ay u baahan yihiin asagana codsigeena xukuumadda iyo mataqaana waa u fulinay waa u gudbinay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta waa u gudbinay wax ka qabateen ee ka qabanina mar kale inta ku celinayna laakiin haba yaraatay meel hadda xildhibaano federaal in aadaan sida Kismaayo su'aalno kaleenta oo yabuuq oo ka jira mala hadar meesha la yiraahdo galmudug way ayadana waan aadinaa biidillah alkariim ayadana munaasabad baan uga soo hormarnay maxaa yeelay kana hadda doorasho ay ka jirtay galmudug ra'iisul wasaarihi baa jiro bishii bar ku soo maqnaa wax uu soo dhaweeyay wixii hadda guddi uu sameeyay wixii wali way ka kala daateen laakiin idin ayadana waan aadinaa ka cabsan Cabdirasaaq Xasan raali hada waa Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya